بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان خير كبعية مال كسر جوكتان خدي الدمر وأنا ود السلامي سلامة الإسلام سلامي إلهي وحن كرجينا يا إنه نقول مية مال كسر خير بدن سيدا حد ما ركتمش عن إنه نقول مية عاوة وحبينك عم بلصنين وقت يدي بلصنين يلي جوجا muxuu ahaa magacay waa Cabdulqaadir Cumar caawa aniga daadihinaya barnaamijka in badan ayaan ka maqnaa mashquul ayaan iska ahaa marka insha Allah walaalaha kale maaragtay hawsha fulinayay ilaahay khayr ha wada siiyo dhamaantood muxuu ahaa caawa waxa ana daadihinaya professor Salaad Fiidowna uu ka jawaabaya su'aalaha duwaliira wixii update waxa inoo sameynaya insha Allah injineer Calisow ayaa sidoo maaragtay online noo ah oo ku jira marka professor Fiidow hadduusan ku jirin inoo wac khadkaa soo galo muxuu ahaa injineer Calisow noo wac professor Fiidow khadkiisa u soo galo weli muusan soo gelnaan filayaa saasaan jeclahay marka waxaan kusii wadanaynaa maaragta hawshii sida ay noo ahayd jadwalka أبو عبد الله أيام كسر دوينيا إنه نوده فور إن شاء الله وحي وعدي يوم مرتاح قرآن قولنا إن شاء الله كسر دوا أبو عبد الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ريال غير كبعية كوبراتيف لما أنت بمدنيال إيه مرويين ميرات شوكتان بقي وقت قصدين تهي وحان إذكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله رحمك ما هذا السكالة هالكسو كاني أخيارتنا الله رحمك حنقبري مشروع أي هل يهمل أتف حيدين إلى هيكو أسطره مشروعا إلى هاي نقدره مد أفلحه قوة كان كلنا عيب كلا قوقب كيس الباحة نقد القاضي يا الله رحمك آمين وريال وحدنا نبلع آيات القرآن كهاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا ريال إلى هذه بركية آيادا وسورة الأعراف وآيادا سجاشن اللح اللهنا الرحمن كقيب تروح إنه وشيء أرن كنتي علاقة له مشروع ودنه الله وحده سبحانه وتعالى عدي لجهله إيمان إيا الله كعبسي وحان أفريا بركوينك عرك الكبا الله رحمن وحان كبريا إلى هاي بركوينك عرك وإنه أفرو إنجنا إلى هاي نقدقو كوا الله كعبسي بدية آمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسوق لي يا بروفيسور في هذا السوق لي إن شاء الله أبو عبد الله كرامي بارك الله فيك waxaan rabaa wax yar oo ogeysiina siiyo waxaan hordhac ahaan idin sheegayaa bismillaahir rahmaanir rahiim alla fadligiis kobciyo cooperative dadka ku jira dhamaantood waxaan ugu bishaaranayaa inaan ballansanahay oo insha Allah axadda ama isniinta hadii ilaahay yiraahdo aan waxa sare dawladda la kulmi doono sida aan rajo weyn ku qabno oo bataqaan loo ballan qaaday marka intaasaan idin socodsiinaa inaad ogaataan insha Allah soona duceeya in la tawfiiqna waafajiyo waxaan hadii ilaahay aqbalay soconayaan da ilaahay aqbalay ma soconayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala saa awood iska leh kulligiin soo duceey hal istighfaarto ilaahay hal laga cabsado ilaahay hal la baryo inay Soomaali guuleysato oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqay faqriga iyo iscakala carka uga bixilay ilaahay u furo insha Allah soo duceey bidna al-mawla waxaan rajaynaynaa axadda iyo isniinta inaysan la dhaafin oo insha Allah aan dhaxsar la kulan bidna al-karim saasaan loo ballan qaaday wa in salaamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
marka ilaahay khayr ku siiyo injineer calisow insha allah kulle axadda ama بروفيسور سوغل ما فيديو وكجرا ما axadda ama isniinta insha allah waxaan rajaynaynaa midkood inaan la kulmi doono madaxweynaha siduu noo sheegay qofkii noo dhexeeyey anaga weli madaxweynaha ma wada hadlin laakiin isagaa noo sheegay marka insha allah waan ka rajaynaynaa wax kastana waa dhici karaan suurtagal waa inay isbedelaan marka ha la soo duceeyo ducadaasaa muhiima in maaragtay ducada maaragtay laisku soo kaalmeeyo biidnillahi kariim marka caawa su-aalaheennaan bilaabinayna waxaan filayaa dad su-aalo qaba inaysan meesha ku jirin caawa oo wax gacan taagayo oo su-aal qabo mahad adiga waad ma cusbid waxa waaye in badan ayaad kusoo laalaabatay marka haddana kusoo dhaweynayna information kulli cusubaan noo wadaa umalayna wixii hore waad ka dharagsan tahay kusoo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيارت بروفيسور هل كان كوجرة برنامج كان تأتي أن هاي إن شاء الله وحواي أبديت كانوا ونقيسنا ونقلي ودعاءها صوتك أقوى يا مهدو. خيارت دعاءها صوتك خيارت هل كان كوجرة دمان حبنا ككبعي يو متصوماليات به برنامج كان iyo aadka looga dhugsugaya mustaqbalka ifaayo iyo guusha Soomaaliyeed ay ku jirto hadda ilaahay waxa waaye khayra uu fuliyaay ilaahay noo garab galo ilaahayna noo fududeeyo alxamdulillah haddii hadalka gabgabkana waxa waaye farxad iga tahay ما شاء الله هذا ما صنت ما صنت خير الله كسيه نمع إلهي آمين إن شاء الله آمين نمع كسودو نمع محمد بتك بلارني هوس تابو بتك بلارني دحه حق هوس ku yaalo oo buluuga ah taabo cagaar ku noqonaya kadibna hadal waa lagu siiyay adaa xaggaaga uu mute ka saaran yahay batanka balaaran ee dhexe taabo oo microphone ku sawiran yahay si aad u hadashid nimco batanka balaaran ee dhexe taabo ee hoos ku yaalo okay aan ka gudubno shalaqbeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan filaynaa inay maqlaysaan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته si wanaagsan mucusbi waan ku faraxsanahay in badan maalinkii la furi lahaa dartan waan barnaamijkan waan la socdaa wax cusub ma sheegayo balse keliya waxaan dhihi lahay maadaama hooshii riyadeeni ay usbuucan gudihiisa ay noqon doonto insha allah keliya waxaan iska codsanaynaa hal shay dadkeena hal mar oo dul martaan sida qofka uu u baxsan lahaa lacagta qaabka qiimaha maahan qofka doonaya inuu soo shubo qaabka uu shubi lahay intaa inaad nu dul martaan waa iga codsi wax dhibana ma jiraan waana ku mahadsantihin adaa mudan shaqbeen dabcan horena waa loo sharxay lacagta qaabka loo soo shubi doono waa system ayaa u dhiibanay system ayaana wax ka qaadanaysaa maahan inaad qof bini aadam aad lacag u diraysid ama telefoon ugu diraysid total mamnuuc waay waxaas marka waxaa la rabaa qofka bini aadamka ee soo galaya kobciye waa inuu marka hore kow uu form buuxiyaa formkaas informationkiisa oo dhan ayaa ku jira ha noqoto yani asaga magaciisa saddexan ama afaran meeshuu iska diiwaangelinayo dhaxalkiisa cidda iskale waxaasoo dhan ayaa ku jira marka accountadiisa waxaasoo dhan markuu buuxiyo uu qofkii soo diro kadib lacagtii ayaa laga codsanaa lacagtan waxaa lagu siinaa accounto oo kobciya ay leedahay accountadaas kusoo shubaysaa ma ahan inaad telefoon iyo waxaa midna aad kusoo shubaysid accountkaas markaad kusoo shubto automatically systemka messagea usoo dhacaya adigana messagea kusoo dhacaya oo la leeyahay lacagta waa la helay marka waxa waaye systemka ayaa ku gudbinaya inaad diiwaangelin lagu sameeyo marka diiwaangelin lagu sameeyana id number aad leedahay id numberkaas ayaad haysanaysaa isagaa password ku ah hadhow abka xitaa maaragta markaa galaysa asaa password ku ah qaabkaasaan ku galaysaa macnaha idga magaca iyo idgaas la socda oo password ahaan ku ah username iyo wuxuu leeyahay iyo id ama password wuxuu ahaado
marka kaas ayaa ku samaysanaysaa marka qaabkaas ayaa lacagta loo bixinaya dadka xawaalada kusoo diraya waa jirta dad qaarkood inay xawaalad kusoo dirayaan dadka xawaalad waa inay sheegaan magaca accountkaas waa inuu kusoo dhacda lacagta marka lacagta markay accountka kusoo dhacda qofka xawaalada inuu iska soo dira maaha kobciye keliya inuu kusoo qora lama rabo waxaa la rabaa magaca kobciye cooperative ama iskaashatada kobciye iyo wuxuu kusoo qorayaa account numberka oo lacagtaas lagu shubayo dabcan xawaaladaha way kala leeyihiin xawaalad kastaba waxa waye bangi gaar ay leedahay inta badan bangigaasi marka anagana account waa noo wada furan yihiin bangiyada intooda badan oo xawaaladaha leh accountka markaad kusoo shubta xawaaladaas iyo bangiga isleh ayay ku shubaysaa maaragtay kobciye ay leedahay ay ku shubaysaa marka qaabkaas ayayna maaragtay wada soconayaan maaragtay wuxuu dhan marka waa kaas shaqabiin waxaan malaynayaa inaad ka dheragtay mahadsanid 100% aad u mahadsantahay salaam walaal cabdiqaadir ku jira fursad ku jira fursad soo galay hay marka hadda wax su'aal qaban oo gacan taagay ma hayo wax su'aal qabo oo gacan taagay ma Ismaaciil جناب عبد القادر بس حقنا كحيرة ميكروفونكيga بكر شلقبين adigu waa iska xirtay batanka taabo shaqbiin batanka weyn taabo mood kaliyan galaya laakiin xaqinu ka furan yaano ma ya dib male moodka gal moodka inaad gasho baa muhiim noo anaga okay soo gal Ismaaciil batanka balaaran hoose taabo batanka balaaran dhexda ku yaala microphone ku sawran yahay Ismaaciil كسعة وأسوق الشيء كسعة. أنا إسماعيل سوما. ها هذا هو. السلام عليكم أخيارت ماشي سوق تمدوايد السلام دمانتين يو أنت مغليسو وأمرك ورئيسون برنامج كان وقت استعبين والبوقت استا لكن عاوة سؤال هذا كجوابي ساحوجا كجوابي سؤال يريق الصبح عليه. أيه. marka ugu horeysa aniga aan kula hadlayo qurban jooga waa diiwaan gashanay dadka hor u xiriiranahay laakiin su'aalaha waa dhageysay jawaabaan waa qaadahay ma ogtahay marka waxaan rabaa hadda waxa tiri systemka lacagta lagu soo shubaa dadka xawaaladaha ku soo diray akoonka lagu soo diray in ay qoraan waaya tiri oo yani mesela aniga hadaan aan leeyahay ka waran bangi salaam oo kale aan qurban jooga Saudi Arabia jooga horta account anaga account adiga aan leedahay lacag lagu shubayo moogta account kobciye leedahay lagu shubaya ana soo dir raba lacagta account-kii ma soo diri karaa waa su'aasha account waa samayn kartaa waa samayn kartaa account ka soo bixinaa kobciye ku wareejina adoo isticmaalaya maxay to systemka ay sameeyeen وبين أيديك شيكتي أنا قاعد وطنك مجوك نموكتها يوس نمبر كاس يو رقم سريت كاس سو سارتين ما جيميل هذين أنا نقصد ريسين مساء وقرال حنا نوسيسين والغو صدرها وما سنت لأنه وطنك وكفوقنا السعودية عربيا جوجنا ليش كالسعودية كجرا مركوا هبين والبسان وكل سبتك وأودجستا وحي سؤالها الذين ويديو جوابته عبد الحسين قاطع تنا مركا جوابتي سؤال يجت من موقتها ما وحول بواسالين وحول بسهل على قدر بين الله الكريم ما إن شاء الله إلى خير أنه قد يوتي ودنك وكدق الله كدق تي مارت أمد الصومالي فقري وبحث الله كدق هبين والبس ودعينا آمين إن شاء الله هذا سود دعاء ذيك عرب كله سود دعاء إن شاء الله عرب كذا كذا دعينا به أساسا ربنا إن شاء الله دولتين وهم قريج عشاء إلى وأن لو قدقنا كجرنا شركتنا ما إن شاء الله بدأ يستدول إن شاء الله وإذن سلامة دمنتي وهذيك قاعدة بارك الله فيك أي إنجنير عبد الله أحمد بطنك بلارن يدي حتابة هوسة كويالو إنجنير عبد الله ولغو فرعتك بطنك بلارن حق هوسة كويالو عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وأنا مقلها وأنا دوّهاي waxaan joogaa magaalada Muqdisho barnaamijkana in badan waa la socday laakiin maalmahan Ramadaan wixii ka dambeeyay lama socon marka waxaan rabaa
waxaan hadda markaan soo galay maqlayay lacag iyo akoon iyo wixii barnaamijka markaa jira in laga dabageeyaan rabaan warka maba heenba akoon iyo lacag ma waxaa bilaabtay diiwaangelin anuma diiwaangeshin muqdishoana jooga muddo badan waa ka warhayaa marka haddii la isdiiwaangelinayana waxagahan kula soo uga hagaagaa lacagta la sheegayana waa meeqa la bixinayo sistamkaas ما ديوان قليل ولا بلابن صح ولا ما بلابن ديوان قليل ولا سوى إن شاء الله ولا ما lacagta la بلابن shubayana والله استقاب له شوي دتك وريسنا يعني دت استمارتي وسؤال ويجدينا هاي ما هي وحل عقل بلابي ابن ملا marka sistamkii kalena barnaamijkii weli waa socda soo maa ها واسع إن شاء الله insha allah أي عثمان سوقل عدك وعلقا قاضي بتك بلارن هو ستابو عثمان اوكي كسعود محمد خليف بتك بلارن هو ستابو محمد خليف batanka ballaaran ee microfonka ku sawiran yahay dhacda kaga yaallo batankaas taabo kadibna su-aashaada soo weydiin calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kobciye cooperative waa mahadsantihiin hal su-aalaan rabay inaan weydiiye laakiin waaba yarkii hadda iga horreeyay aan weydiiyey oo waxaan dhihi rabay isdiiwaangelinta ma bilaabatay su-aashaasaan rabay maadaama muddo aan kasoo qaybgelin marka live streamka marka laakiin adaaba horaaba uga jawaabtay waa mahadsantihiin shukran alaasaan rabay inaan weydiiyo mahadsantaha cabdisamed maxamed cabdisamed khaliif codka iska xar maxamed khaliif codka iska xar cabdisamed aawe cabdisamed batanka ballaaran hoose taabo السلام عبد عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كله أنا وسؤال ما قبل دمان وهرت واحد سلام يا مدة الصومالية ذي كوتشرت كوبريتيف مركز تيجوجان وحنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأنا وحنا أبو السلام يا جنير هذا يا بروفيسور هذا عاد بعض ما سنتين هاوشا وكلارنا يسوي دين متضرر إلهي وحنا كرت شيء labada cishe fooda nagu soo haya in war farxad leh insha Allah inooga yimaado dhankaas aad ka sugiseen dawladda markastana kulli garabkiina ayaan taaganahay oo anagu kobciye mashruucan kobciye aad iyo aad muhiimad gaar ah ugu leeyahay waxaan ilaahay u rajaynayaa markasta inuu kobciye uu guuleysto insha Allah aadna waad ugu mahadsantihiin كل كوعيد مركز تجرب استاجي سديار بمناهي إنجنير هذا يبص بروفيسور هذا هوش درس وذي كل علاج بدن بصارنا ولينا وسارين هي كل إلههم بين نجاح ترسين تونو لكن وحي كوعية لو جبهني هي عبدي نقول له هيدا كصوب بندقة كوعية إن الله سماه حيسينه يهم بالشيء الصومالي اللي جالسيو haddii dhan dhaqaale loo baahan yahay kulli dadka Soomaaliyeed oo wanaagsan diyaar baan u nahay in aad noo sheegtaan wixii haddii loo baahan yahay kobciye lagu horumarin lahaa markasta diyaar baan nahay horena waa looga geystay kobciye in yani dhisitaankiisa qayb weyn ayay ka geysteen ajir weyn baan ilaahay uga rajaynaa dadkii khayrka bulshaday haddana diyaar baan u nahay wixii kobciye u baahan yahay horumarintiisa iyo hirgelintiisaba iyo soo bandhigida kobciye kulli xalfad weyn waan loo dhigi doonaa insha Allah waanad ku mahadsantihiin meel kasta joogtaan waxaan leeyahay reer kobciye guushu way soo dhowdahay labada cishe insha Allah ay noo sheegeen aqoonyahanaduna waxaan ilaahay ka rajaynayaa war bushaare leh inuu nooga iman doono kobciyena insha Allah uu hawshiisa bilaabi doono idinkana aad baynu ugu soo ducaynaynaa waxaan ilaahay niga جزاك الله خيرا ومحسنت هذا ومحسنت هاي waxaan filayaa caawa dadka inta badan su'aalo ku qabaan إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
wax su'aal gacantaaga ma u jeedo qof baa shalaqbiin hadda soo galay shalaqbiin hal mar soo gashay mar kale ma aad u baahan tahay Hay, نذير محمد حسن فيه shalaqbiin نذير محمد حسن فيه. okay nadiir soo gal nadiir soo gal hadda way maqashaan soo maaha waa lagu maqlaa assalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamayaa maamulka kobciye iyo dadka ku jiro waalaikum salaam dhammaan waraxmatullahi idin wabarakaatu salaamaya kal horan isku keen dambeysay ramadaantii iyo arrimihii kale mashquulka ahaa ayaa la kala xoogaa waqti laisku heli waayey maasha allah arrinka hadda oo uu injineerka dhawaajiya aad baan ugu farxay maadaama sabtida ama axad insha allah hadduu ilaahay subxaana watacaala na gaarsiiyo madaxweynaha lala kulmi doono hadduu alla idmo su-aasha aan qabo waxaa weeyaan maadaama madaxweynaha insha allah haddii ay macquul noqoto ilaahay xaggiisa laga soo qoro inaad madaxweynaha la kulantaan madaxweynaha marka barnaamijka u sharaxaysaan ma idaacadda qaranka ma laga soo sii daynayaa mise kulanka wuxuu noqonaa kulan oo albaabada u xiran su-aashaasaan rabay inaa aan weydiiyo injineer cabdulqaadir profesorka ka jawaabaya profesor fidow asaa caawa ku qoran su-aalaha haye profesore assalaamu calaykum waraxmatullah nadiir waa mahadsan tahay annagu waxaan yani ujeedadeenna waxa waaye in aanu maaragtay dowladda ama madaxweynaha aanu barnaamijka aan wadano si waadixa u sharaxno faa'iidada ummadda uu leeyahayna aan si fiican u sharaxno laakiin sii deynta iyo barnaamijyadaasi waa barnaamijyo ayaga ku xiran haddii ay dhahaan ummadda kaale ay u jeediyo wixiinana waa isdaylaynaa haddii ay dhahaan aysan arrintaas ku talagelino ayaga horta hore intay dhegaystaan kadib ay ka fikiri doonaan go'aanadeeda iyo sida maaragtay laakiin hadafkeenna annaga waxa waaye inaan u bandhigno madaxweynaha iyo guddiga inaan wasiirada ah iyo wixii maaragtay dowladda ka mid inaan u bandhigno arrinta iyo hadafkeenna iyo sida aan rabno ummadda soomaaliyeed inay isu kaashato oo ay u horumarto oo ay ku gaarto maaragtay dariiqaas oo aan ilaahay ka baryayna dhammaanteen intaasaa adiga ugu muhiimsan wixii ka taratibmi kara ama ka abuurmi kara meeshaasi waa wax naga maqan laakiin hadafkeena saas waaye intaasay annaga ku eg tahay marka waxaan u malaynaya waa isla fahanay ayaan u malaynaa nadiir haa walaal waa fahmay dee barnaamijka waa barnaamij de maadaama markii aad culimada aad u sharxaysaan culimada xitaa ay soo dhaweeyeen dee maadaama culimadii waaweyneed ee soomaalida ay soo jeediyeen ay soo dhaweeyeen markaa u sharaxdeen dee madaxweynaha wuxuu ku diidayo ma lahan ayaan anigu aaminsanahay maadaama waxay yihiin wax qaran ani waxaan umalaynaa insha allah inuu madaxweynaha uu soo dhaweyn doono insha allah waana idin salaamaya waana idin soo duceynaya inuu shirkaas u noqdo shir wanaagsan oo miro dhala nadiir waa mahadsan tahay jazaaka allahu khayran aadoo mahadsan tahay ibraahim cabdikariin xasan batanka ballaaran ee hoose ee microphone ku sawiran yahay taabo waad soo gashay hadal waa ku maqalnaa ibraahim hadal asalaamu calaykum calaykum salaam magacaaga meeshaad joogta waa ibraahim cabdikariin oo idinkala soo hadlayay warta nabadda muqdisho haye ku soco wixii su-aalaa qabta waxaan qabay horta si kale barnaamijka alxamdulilah waa la fiican yahay maana waxa dhiba lama arkin alxamdulilah aad iyo aad ilahay mahadiis maasha allah maxaa isbedelayo ayaamahan hogo waa yar sida updateka in la sheego rabo haddaan idinku soo biiray laftiga waaba ilaabsan haddaan soo xasuustay okay marka rekoorka lasoo dhigo ka dhigayso wixii update oo lasoo dhigay meeshaad ka arkaysaa dib uguma laaban karno marka kolley madaxaan la ballansanahay hadduu alla yidhaha isbuucan dhexdiisa
soo socda marka insha allah isbuuc kalena waa dhegeysanaysaan wixii oo update ah. maasha allah maasha allah waxa caqabada oo hadda dhib laga kulmay maya aad dareenteen maya maasha allah waxa ilaahay qabad haba yaraatee ma jirto insha waxa allah qabada ma ilaahay jirto alxamdulilah. idinka dadaalka bixinaysaan ilaahay idinku garab galo insha allah waxa idin soo duceynayna hal sii wada insha allah aamiin insha allah waa soo duceeye. salaamantiin insha allah waxaan u malaynaa caawa weli dadkii wax soo galaya ma laha. su-aalihii inay soo idlaadeen aad moodaa. waktigeena wax badan ayaa ka dhiman oo nus saac kalaa dhiman marka haddaan iska soo gabagabaynayno ma garanayo marka kolley aan fiirino abu cabdalla haddii kelmado wacdi aad nagu sii madadaalinaysid inta maaragtay qof uu soo galaya su-aalaha iyo haddii aan xerayno labada mid الجرس خير ah aye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan filayaa kobciyo cooperative waxa waaye team oo adduunka ugu firirsan waaye waxyaabo waxaa jiro waxoogaa qolooyin kaleentood oo na farafareynaya jiro waxba naga sheegaan oo been ka sheegaan kobciya oo dad lacag ka qaatana jiraan marka waxaan filayaa kobciya magaalo kasta iyo tuulo kasta uu joogaa waxaa la rabaa in mataqaanaa kobciye la difaaco dadka lacagta laga cunayo xaaraanta looga qaadana laga dhiciyo dadka muslimiinta oo laleeyahay lacagtan keensay lacaanku darna kobciyahana la dhahaa magaceena sheeganayo waxaan rabnaa dadka ku jira halkan inay dad kalenta gaarsiiyaan iyaguna ay ka shaqeeyaan inaysan dhicin dad muslimiina in lagu dhaco magaca kobciye cooperative lacag ma qaadiyo lacag ma weydiinin telefoon ma diriyo meeshaas lacag saddex ku dhihi maayo warkaas war la ogyahay waa horaan u sheegna marka waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah oo la dhacaayo oo dadka mataqaanaa aan iimaanka lahayn oo ilaahay mataqaanaa uu yacni iimaan ka qaaday ay leeyihiin lacagtaas soo dir lacagaad helaysaahe waxaa rabaa in lagala hadlo aan naqano tiim aan isu sheegno aan isgaarsiino telegramka aan iskula hadalno si kasta aan wax ugu sheegno whatsappka la isku sheego oo la ogaado kobciye cooperative lacag ma qaadanayo kobciye cooperative lacag soo dir ku dhihi maayo cooperative telefoonkiisa lacag loo tuuri maayo lacag kaashi loo dhiibi maayo qof bani aadama oo kobciye ka tirsan oo shaqaalihiisa ka mid ah hadday ay dhacdo xataa shaqada markay bilaabato qof lacag gacanta loo saaraa ma jirayso waxa waaye system aa lagu shaqaynaa oo lacagta ku diraysaa lacagtana hadhow markaad helaysana asaad ka helaysaa waxa la yidhaha gacan ku qaad iyo qofaa lacag telefoon gooniya iyo akoonnada ay leedahay kobciya cooperative waa la caddaynaa halkana lasoo dhigaa iyagoo waaweyn waxaa la dhigaa telefisyoonada waxaa la dhigaa mataqa meel kasta oo mataqa media aa laga heli doonaa insha allah youtubeska ma jiro meelaan akoonnadaas ahayn oo lacag loo diri karo wax lacag idin weydiiyo lacag loo diri karo ma jiro dadka masaakiinta oo lacagta diraayo ciddii ka warqabta ha ka dhiciso kuwa saas yeelaya ciddi ogaatana ha sheegto waxa waaye howr laga qabana waa la iska dhicinaa insha allah waa mahadsantihiin iyo cabdiqaadir soo dhawa bax okay teedi kale waxaan ku daraya maalin weyd waxaan tegey somnet waayo waxaan arkay sheekh bashiir ayaa ii soo diray linkiga oo telegramka ay leeyihiin telegramkooda waa account oo qof messageka wax kuma soo qori karo ay keliya wax kusoo qori kara waxna soo dhigi kara sida ken oo kaleeto kobciyo cooperative u yaho kaleeto waa under admin marka waan tagnay waan aragnay magacyadoodii kulli waan baarnay marka waxaad dareemaysaa waa horta wiil iyo gabaraa ku qoran gabar hibaaqa la yidhaahdaa saasaan jeclahay magaceeda hibaaq inuu ahaan jeclahay maalin dhaweyta ayaan warqad halka soo qorqortay oo halkan hibaaq ibraahim axmed aa la yidhaha gabadha waxay isticmaashaa jabka waxa waaye waa abc pluska ama saadka maaragta ay isticmaalaan somnet qofka kale magaca kale ku qoran waxa waaye cabdulaahi muxudiin nuur isagana waa jira waxaa kaloo jira magaca telefoonka kale ay isticmaalaan
telefoonka horta cabdulaahiga uu isticmaalo waa 68 oo somnet ah 2293025. wuxuu kaloo leeyahay number hormuuda oo 6157744457. gabadha hibaaq la yiraahdo telefoonkaas ayay leedahay. waxaa kaloo jira inay mar labaad ay bedeleen magacii nambarkii oo hormuud ahaa oo ay ku qaateen 6123474416. asagana magacaas nambarkaas wuu jiraa. waxaa kaloo jira nambar kale oo asagana somnet ah oo 68374990 oo ay ku qoran tahay aadan cabdulaahi axmed. waa isagana waa dadka jaab ku shaqaysta howlahaas oo dadka ka mid ah. jaab uu leeyahay cabdulaahi aadan. waxaa kaloo jira isagana jaab ahaan isla aadan cabdulaahi axmedkaas wuxuu kaloo ku qortay magac kale ah cabdulaahi aadan maxamed. waa magacyadu isdaba mariyey uu cusboonaysiiyey. macnaha markuu cusboonaysiiye magac kale ku qaatay. wuxuuna isticmaalay haddana magac kale ah aadan cabdulaahi ibraahim ayuu isticmaalay. nambarka hormuud uu leeyahay waa 60113317. damiinna waxaa ka ahaa nambar hormuudah oo 69608436 oo ku qoran yahay aadan macalin cabdi nin la yiraahdo ay ku qoran yahay. magacyada saasaan usoo ogaanay. marka dadkan waxaan inoo sheegeen in dadka ugu badan ee ay dhaceen ay tahay reer Hargeysa. reer Hargeysa aad u dhaceen sida naloo sheegay. marka dadkaas magacyadoodu way qariyeen. magacyadooda lama garan karo. magacyo figay meesha ku qorteen, sawirkooda lama hayo. marka kulli arrimahaas waxaan filayaa in dowlad uun wax ka qaban karto oo dowladda ay dabagal ku samayn karto arrimahaas iyaga ah. dadkaasna waxaa laga yaabaa inay nagu dhex jiraan oo halkan ay ka mid yihiin ayaa suurtagal ah. oo wax walba ilaan sawiradii iyo fiidiyoyaasheena kulli waxay ka helaan halkanay ka helaan halkanay ka qaataan. marka kulli waa fiiriyaan insha allah inuu ilaahay naga qabto kuwaas. injineer waxaan rabaa inaan hal mid aan ku daro dadkaas oo insha allah haddii oo ilaahay subxaana watacaala aad la kulantaan madaxweynaha arrinkaas insha allah asagana waa inaa u sheegtaan maadaama dee dowladda ay la dagaalamaysay nimankan argagixisada ah. way ka xiri karaan akoomadaas ma fahan ay isticmaalayaan dowladda. kulle waxaan ka qaban karna annaga waa qabanaynaa dowladduna u sheegayna insha allah. laakiin waa iska arrin oo caqabad badan oo dadkan dad magacyadu xitaa marar qaarkood magacyada isdaba mariyaan. magacii oo awowihii soo hormarinayaan marna magacii aabbihii soo hormarinayaan marba si ay u bedelayaan magacii. marka kulley waa dad xamar joogo saan filaayo. xamar inay joogaan aan jeclahay iyo Hargeysa. nambar kale way jiraan oo ay isticmaalaan oo telsom ah oo Hargeysa ah oo aad u isticmaalaan oo Hargeysa lagu dhacay waa jira asagana. laakiin nambaraha hadda ma hayo. gabadha mar ii soo qortay oo Hargeysa joogto laakiin magaceedii iga baxay meel maaragtay meelan ka raadi magaceeda waa iloobay. marka gabadha hadda ay maqlaysa hadda inay mar labaad ii soo celiso aad u jeclaanaysan lahaa maaragtay magacyada iyo nambarada ay isticmaalaan si aan maaragtay u qabanno raggaas insha allah. okay waxaan kusoo dhaweynayaa axmed maxamed axmed. batanka ballaaran hoose taabo axmed maxamed axmed. batanka ballaaran mikrofonka uu ku sawiran yahay xagga hoose ku yaalla dhexe taabo kadibna hadal. okay axmed batanka ballaaran hoose taabo kadibna hadal. okay waxaan siinaynaa cabdiweli xuseen. batanka ballaaran taabo cabdiweli. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa idin salaamay iskaashato calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan wataa dhowr su-aalood. su-aasha ugu horeysa waxa waaye ummadda soomaaliyeed waxaa lagu dhacay barnaamijyo badan
marka waxaan jeclaan lahaa iskaashato kobciya waxay kaga duwan tahay dadka soomaalida inaad maaragtay dadki wixii programyadii hore usoo maray inaan noo faahfaahiso inkastoo aan gadaal idinkala soo qabsaday oo hadda dhow aad arkay iskaashato iyo maaragtay su-aasheeda labaad waxay tahay iskaashato kobciye xarun ma ku leedahay magaalada muqdisho xafiis weli ma samayseen su-aasheeda saddexaadna waxay tahay goormaa la bilaabayaa in lacagaha oo maaragtay maalgashiga ah la fasaxo ama maaragtay ummadda laga qaado insha allah amaasanti haye barsore بسم الله الرحمن الرحيم cabdiweli waa mahadsan yahay cabdiweli waxaan oga duwannahay iskaashatada kobciye iskaashato ummadda soomaaliyeed ay wada leedahay waaye waxa ay lacagta ku qaadayso waa waxa ugu yar oo la isku darsan karo oo $nus ah maalintii ama bishii marka lagu dhufto intaas ama sanadkii marka intaas lagu dhufto waxa habka ay ku qaadaysana wax waaye hab system ah oo ah in form qofka uu buuxiyo in number la siiyo in sawirkiisa lagu dhajiyo informationkiisoo dhammaystiran ama macluumaadkiisoo dhammaystiran lagu qoro kadibna uu ku soo rido lacagta account oo qof gacanta uusan u saarin systemkaas iyo nidaamkaas ayaan kaga duwannahay waxaan kaga duwannahay lacagtan inay noqonayso lacag maalgashi ah oo lagu shaqaynayo wixii ka soo baxo ay noqonayso wax qofka lacagtiisa maaragtay wax faa'iidada loo celinayo aysan ahayn waxa ah lacag keen biritan intaas qaado oo saas habka maaragtay wixii dadka lagu dhacay oo aad sheegaysay ay ku shaqaynayeen yani waxaan isleeyahay qodobkaasi waa cad yahay qodobka labaad xafiis ma ku leedihiin magaalada muqdisho xafiisaan ku leenahay wuxuu ku yaalaa maka mukarama hotel weheliye meel u dhow oo shaqeeyo inta badanna maalinta khamiista galabtii ayaanu fadhiisanaa labada duhurnimo wixii ka dambeeyo oo aan isku nimaadaa wix barnaamijyo ahna horaan oga soo shaqaynaa waxa aanu shirarka ku qabsanno ayaa meeshaas isugu nimaadaa waxaan u malaynayaa in aan marka su-aalahaadii aan ka jawaabay cabdiweli goormay bilaabanaysaa okay goormay bilaabanaysaa maalgelinta waa waxa aan hadda sugayno howlihii ay ku fadhiisa lahayd ama systemska ay ku fadhiisa lahayd ama ha noqdo account ama barnaamijyadii ay ku shaqay lahayd oo database-ka ah ama habkii lagu shaqay lahay oo dhan waa la diyaariyey xagga shuruucda waxa hadda aan rabno inaanu la kulanno waxay tahay madaxda dowladda ugu sarreyso si waxa aan rabno iyo nidaamka aan ku shaqaynayno inaan ka dhaadhicino aan tusno si aysan ugu dhaqaamin meel maaragtay waxay rabto iska samaynayso laakiin meel dowladdu ay ka warhayso ama ay maamulka ay ka warhayaan oo hadhowti la xisaabin karo wixii qalada wixii wanaagsanna lagu garab geli karo nidaamkaas ayaanu ku shaqaynaynaa waktiga ay bilaabanayso waa waktiga aan ka soo dhammaano oo ay ayagu ku qancaan barnaamijkaasi kadibna xafladdii ayaan ku dhawaaqaynaa xafladdii barnaamijkeeda aada u diyaarsan yahay marka waxaa noo dhiman xagga maamulka sare ee dowladda in aanu maaragtay la kulanno waxa aan hayna aanu istusno iyo systemka aan ku shaqaynayno markaas kadibna loo dhaqaaqa xaggaas iyo in xafladdii la furo oo ay bilaabato hawshii lacag qabashada iyo muxuu ahay accountnada iyo systemka lagu soo diri lahaa ee lagu soo shubo waxaan isleeyahay inaan dhamaystiray haddii ay wax dhiman yihiin injineer cabdulqaadir iyo asxaabta waa ku diri karaan سؤال مارك وافي أنا أقول جوابتي هذا ما ستبرسوني يا كل سؤال قبل هاي inta aadan ka عبد bixin الولي maalinta khamiista ah 8 saac ilaa iyo 10 saac aad furantihiin soo maaha maalinta khamiista ah
يعني 6 ساعة ما hadba shaqada aan markaa isugu nimid sidii ku xiran tahay waaye goor maqribka la isla gaaro waa jirtaa laakiin mawcidka aan badanaa kulanno waa 2 laga bilaabo casirka meesha agaarkan ku dukanaa kadib haddana waa usoo noqonaa marka hawsha maalintaas aan ku shaqaynayna ayay ku xiran tahay ilaa waqtiga aan sila sii joogayno maalmaha kalena waa xiran tihiin soomaa ama waa maalmaha kale marka ma xiran tihiin mase maalinta khamiis bisa furinta xafiiska xafiiska wuxuu 24 saac u furnaado ma jirto marar badan oo uu fadhi jiray way jirtaa laakiin howlihii kala dhan waa soo dhammaadeen waxa noo haray keliyaan kuu sheegnay marka waqtigaan isu nimaado waqtigaas keliya waaye hadda markay howsha waa mahadsan tahay hal su-aaloo kale aan raba inaan ku darsado waxaan idinka arkay youtube-ka ha noolaato ayadoo laga wareysanayo professor marka su-aalahan rabay meeshaas inaan weydiiyo waxay ahayd su-aashu sanadkii qofka waxaa laga rabaa inuu maaragtay bixiyo $182 iyo bar marka wax sanad walba lama gashanayo miya ka badanna lagama rabo dhahay sidaan aan u maleeyey oo qofka waxaa laga rabaa lacagtaas $1 maalintii sanadkii markii la xisaabiyana waxay noqonaysaa $182 iyo bar marka qofkii rabo sanad kasta inuu maalgelin cusub sameeyo waa u furantaa u malaynaa dabcan waa u furan tahay sida lagu shaqaynayo waa in lacagtaas aad sheegaysay oo $182 sanadkii la isku darsado lacagta isku darsigeeda ama lacagta maalgashiga joogto waaye joogtadaasi micnaheedu waxay noqon kartaa lacagta faa'iido aa heshay in intaas laga jaro inti kalena lagu siiyo oo ay meeshii kuu sii maalgashato marka maalgashiga wuu soconayaa oo joogto ayuu noqonayaa waa gartay wax ka badan qofka waxa waaye macnaha $1 ma istaagaya weligiis waa soconaya ama faa'iidada ha lagaaga jaro ma lagama badin karo lagamana yarayn karo sanad walba waa in $1kaas maalin walba inuu socdaa sanad walba waa inuu socdaa laanno mar alla markuu socdaba adiga lacagtii ra'simaalka meesha ku tiil waa sii kordhaysaa mashaariic cusub oo kuwii hore aan ahaynna waa la maalgelinayaa faa'iidada rajaynaysana faa'iido ka badan tii hore ayaad rajaynaysaa sanadka ku xiga macnaha waa saas maasha allah aad mahadsantihiin mudan qof kale oo gacan taagaya ma hayo qof kale oo gacan taagaya ma hayo waxaan filayaa inaan iska soo gebagabayn doono caawa inaan soo gebagabayn doono ay u badan tahay marka abu cabdallah aan siino abu cabdallah usoo dhowo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يا غير كبير كوبراتيف لما أنتم بمركلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري الله رحمك يا مهد اسكاله مشروعا انت بدن سو ودني فالهدي ما شاء الله ليلي اما احد اما اسلينتا ايام مدحوين الله كل ما ان شاء الله مركا ولا ريال دعاء ان بدينو ان بدا بن تاريخ سو ريحني وان يربا نو حدي الله رحمك وحا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا الله ولا ريال وحب لنقاضي عدة الله كبغضة إن الله هوله قول يدير كذا بدقيو سيدو كلا الله وحول سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه عدة الله تعالى صارت الله كفرا وكان يركب إلهي خير من هذه السيء الكذب من الأخيار كتيرة ولا ريال مر لينا نتشبن مشروع ودك إنه حوي بعد الله عيدنا ومبقنا إلا مقدنا بركة runtii maanta kelibad badan soo duubay waxaan ka sheekeynayay in ilaahay dhammaanteed bahayn hanuuniyo ilaahay maandooriyaha naga joojiyo inay in hogaaminayaan inta maandooriyaha aad u isticmaala oo loo baahan dadka wanaagsan in dadka ay gadaal marayaan oo inta wanaagsan hore yimaadaan waayo haddaynu gacmaha iska laabanno ayna waxba qabsan intaasoo in hogaamiso dee waddankeenu waa arkana maalin kasta jar buu kasii dhacaya marka ilaahay dabrakeeyo
qofka muslimkana qof marnaba niyad jaba ma aha waayo walaalayaal inagu allaha raxmaanka ah ee awooddiisa iyo cilmigiisa iyo mulkigiisa ay weligeed kaamil ahaayeen weligoodna kaamil ahaayeen ay kaamil yihiin ayay inagu aaminsannahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ina dhiirigelay muxuu yidhi haddii aad geed beerasid oo qiyaamada soo dhacay aragtid beer ha calacalin ha barooran waayo ajar baad ku leedahay marka mashruucan walaalayaal kale waxaynu u wadnaa inagu isirka Soomaaliyeed oo dhan xadiiskii Abu Hurayra ee Muslim soo wariyay wuxuu ahaa wallahu cawn al-abd ma kana al-abd cawn akhi ilaahay wuxuu caawiyaa adoonkiisa inta adoonkiisu uu walaalkii caawinayo marka niyadina walaalayaal aan wanaajino in wadankii dhafar faqri ka saarno biidnillah marka haddii mashruucan alla waxaan ka rajaynayaa in alla inoo hirgeliyo mashruucan hadduu inoo hirgalo bal qof waxaad ka fikirtaa malaayiinka Soomaaliyeed biidnillah ee ilaahay uu faqriga iyo isnacaybka iyo kala cararka iyo kala qoqobka iyo isdilbaax ilaahay kaga dulqaadi doono waayo walaalayaal baahidu waa cadow gaajadu waa cadow waxa kuraasi la isku cayrsanayo waxa la kala cararayo intaa yar baa qof leeyahay ka cantu laakiin biidnillah marka qof walba jeebkiisa u buuxsamo qofna xabad ma qaadan doono insha Allah qofna qof ma oran doono ana meeshan iskale waxaan alla ka rajaynayaa qofka gaaraysa ka baxa ilaa Jabuuti u socda ee dariiqa dhulka mara inuu xarago insha Allah ku mari doono isagoo ilaahay uu ka baqaya laakiin cid kale ka baqay marka walaalayaal guush waa dhowdahay wax yar baa inoo hadhay allana waa inoo ballan qaaday alla ka cabsiga alla oo la tala saarto ducada oo la badiyo istighfaarta laasimo toobada iyo quraanka Allah subhanahu wa ta'ala marka reer kobciyo ilaahay khayr badan haydi siiyo ma sha Allah runtii aad baan idinku ducaynayaa waayo walaalayaal in badan bay runtii u soo sabirteen akhyaartan aad garab taagnaydeen in yar baa inoo hadhay intaana insha Allah biidnillah ilaahay waa inoo guuleynayaa marka waxaan leeyahay marka soo dhawaada akhyaartana Allah raxmaanka waxaan ka baryayaa ilaahay inuu caafimaadka iyo cumriga u barakeeyo oo kobciyo noqday oo Soomaali maanta inaga noo dawaraa oo la yiraahdo Soomaali soo gaaray laakiin ilaahay u gaarsiiyo iyadoo la leeyahay Soomaali ay u soo gaara haddii caalamka meel ah ka dhacaan kaasan alla ka barya inuu alla ina gaarsiiyo marka walaalayaal guushu waa dhowdahay qofka muslimkiina qof niyad jab ma aha marka ducada alla ka cabsiga istighfaarta alla oo tala saarno aan badino insha Allah walaalayaal ta kale salaadaha aynu ku dadaalo sabku hore tukano gaar ahaan ragga haweenka qaaligaana on time walaalayaal tukano ta kale rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam allina raxmaanka markaad ugu dhowdihiin oo markaad sujuuda ku jirtaan marka markaynu salaadaha sunnaha tukanayno aynu sujuuda ku ducayno biidnillah sidoo kale rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam marka habeenka 3 meelood loo qaybiyo qaybta saddexaad dambe ilaahay subhanahu wa ta'ala ducada waa ka aqbalaa dumiisa sidoo kale marka roobku da'ayo ducada waa la aqbalaa sabada furan sidoo kale jumcaha waxa ku jirta yoomul saacatu ijaba ayaa ku jirta sidoo kale rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam marka la eedaamo iyo iqaamada dhexdooda ducada waa la aqbalaa marka walaalayaal ilaahay barakeeyo waqtigada ay ducada badino insha Allah labada cisho inoo hadhay si ilaahay inoo guuleeyo kabacdina ilaahay walaalahayna Soomaaliyeed oo dhan ugu soo ururiyo kabacdina ilaahay uu inoo guuleeyo mashruucyada oo faa'iido laga helo oo dhalinyaradana jaamacadaha ka dhameeyna ka qalin jebinaya ee maanta tahriib ku dhamaanaya ama shahaadada la saxanaya sariiraha inay shaqo helaan insha Allah shaqo burtaan helaan ay madaxooda kor taagaan ay wadankooda ku faanaan ta kale inaga dadkeena waa weyn maanta dhalinyaradeennu way yaabsan yihiin runtii marka insha Allah in ilaahay wallahi maanta alxamdulillah odayaashii islaamihii Soomaaliyeed maanta waa isla qaameen oo inoo fikrayaan marka alxamdulillah iyaguna ha noqdeen marka dad aan jabin marka walaalayaal ilaahay barakeeyo guushu waa dhowda reer kobciyo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa Allah raxmaanka waxaan ka baryayaa dhammaantiin intiina la ku jirta iyo inta soo gali doontaba ilaahay inuu gaarsiiyo marka kobciyo alla kobciyo inoo dhigi doono آمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أبو عبد الله إلهك بركة إلهك كرامية هذا ما سنتهي runtii waxa waaye qof qaali ah oo kobciye waxa waaye halbowlayaasheeda tahay marka waa qofka kaliya adiga iyo
tiim dhowr qof ah oo sida nimco iyo maaragtay iyo maryan iyo umu kamaal iyo dhammaantiinba maaragtay maasha allah ilaahay khayr hadii siiyo sidaad maaragtay uga naxaysaan dadkiina iyo dalkiina ilaahayna ajra idinka siiyo waxaan kusoo gabagabaynaynaa in walaasheena hodan iyo caruurteedaba loo wada duceeyo duco badan in loo duceeyo maaragtay hodan gabar ay dhashay ayaa qalliin gashay caawa oo hadda ay ku jirtaa marka waxaa loo duceeyo walaalayaalow gabadhaas ilaahay caafimaad siiyo ayadana caafimaad ilaahay siiyo maaragtay marka waa qof muhiima maaragtay marka bal waa kaas insha allah khayr badan ayaan rajaynaynaa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. عليكم السلام ورحمة الله.